yaraan 3 qof ayaa ku dhintay tiro ku dhow 8 qofoodna waa ku dhaawacmeen inta la hubo dagaal laba beelood oo xoolo dhaqato ku dhex maray deegaanka Miro Qalaf oo u dhow deegaanka Xinjilab una dhaxeeya Cadaado iyo Cabudwaaq. dagaalka oo bilaabmay saaka ayaa lagu soo waramayaa inuu weli socdo waxaana dadka qaar deegaanka ay sheegeen in khasaare intaas ka badan yahay walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. dagaalka oo ay ka qayb qaadanayaan gaadiidka dagaalka qaybihiisa kala duwan ayaa waxaa dhawaqa hubka la isku ridayo laga maqlayaa deegaano ka fog halka dagaalku uu ka socdo. qaar ka mid ah dhaawacyada ka dhashay dagaalka ayaa loo kala qaaday degmooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq oo ay ka soo kala jeedaan beelaha dagaalamaya. dhinaca kale waxaa deegaanka ku soo qulqulaya gurmad labada dhinac ka taabacsan asi oo ka baxaya deegaanada labada beelood ay ka soo kala jeedaan. si kastaba ahaatee ilaa hadda ma jirto cid ku baxday joojinta dagaalka u dhaxeeya xoolo dhaqatada ee tan iyo saaka ka socda deegaanka Miro Qalaf oo hoos yimaada magaalada Cadaado.